qisad ku saabsan ninkii jacaylkiisa aad looga sheekayn jiray qays iyo leela dhex martay ninkii markaa qays ayaa jacaylkii leela ayuu u waashay daraaddeed markaasuu derbiyada iska seexan jiray maalin maalmaha ka mid ah waxaa la arkay isagoo jidaar dhudhunkanaya gidaar derbi buu dhudhunkanaya markaasaa lagu yidhi war qaysow maanta waalidaadii ma waxay kuu geysay derbiga inaad dhunkatid markaasuu yidhi uqabilu daljidaari wa daljidaar wuxuu yidhi jidaarkan aan dhunkanayo isaga maaha waxaan u jeedoon dhunkanaye gidaarkan gadaashiisa leyle ayaa degan oo jacaylkii leylaan u dhunkanayaa buu maalin kalaa la arkay isagoo ay haystoon u dhunkanaya war aygana maanta maxaa kugu salliday wuxuu yidhi aqalkii leyle ay ku jirto ka soo baxay yuu ka soo baxay maxabbadu eeg haddaan ilaahay jecel lahay oo nebigiisa aan jecel lahay sal allahu alay wasalam mujtamaceenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna haddii salaada la adimo magaalada intoo baabuurada la joojiyo oo basaska la joojiyo oo maqaayadaha la xidho oo dukaanada la xidho ayay masaajidu camirmi lahayd masaajiduna inama qaadeene bal waa laysa sugi lahay oo la odhan lahaa annaguna han tukana jamacii miskiidkiibuu naga buuxiye ka soo dareere baa la odhan lahaa salaada jamaca damaan ku xidhan low kaana xubuka saadiqan la aطactahu hadday jacaylku uu dhabkaa yahay waad adeeci lahayd ina almuxiba liman yuxibu muiicu ninba ninkuu jecel yahay buu adeecay dhalinyarada kubadda jecel kuwa kubadda ciyaaray isku ekaysiiyaan kuwa heesaha jecel kuwa fanaaniinta la yidhaha bay isku ekaysiiyaan kuwa siyaasadda jecel siyaasiyiinta isku ekaysiiyaan kuwii nebi maxamed jecel nebi maxamed bay isku ekaysiinayaan magaalada madiina ayuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay madiina yahuuddii la deganayd ansaar oo maalinta caashuuro la yidhaah soomaysa waa 10ka muxaram weeyaan markaa buu nebigu ku yidhi waa maxay yahuuddu maalinkan ay soomayso markaasaa la waa maalintii ilaahay nebi muuse uu ka badbaadiyey waa maalintii nebi muuse iyo reer bani israa'iil ilaahay jalla wacalaa uu badda u dilaaciyey ee dariiqa ilaahay uga jeexay badda ee laga badbaadiyey halaagga ee cadowgoogii fircoonna la halaagay weeyaan nebi muuse soomay calayhi salaam annaguna waxaan u soomaynaa shukri iyo mahadnaq baan u soomaynaa oo waa diintayadii iyo nebigaygii baan ku dayanaynaa markaasuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi annakaa uga xaqle muuse sooma caashuuraa kal dambe haddaan gaadhana sagaalaadkan ku dari buu rasuulku yidhi yahuudda muxuu nebigu ku khilaafay caadaadkii kuma khilaafin bal wuxuu ku khilaafay cibaadaadkii buu ku khilaafay mujtamaca muslimiintana maanta caalamka meeshay doonaanba ha joogaane dhallinyaradeenna mujtamaceennu inta badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka tobanka caashuura waxay u soomayaan baa la yidhi waa maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey ee dariiqa looga furay badda fircoon wa jeeshihuna laga halaagay markaa waa shukri bay u soomayaan markaa buu nebigu yidhi annakaa nebi muuse uga xaq leh waa soomaynaa caashuuree sooma kal dambe haddaan gaadhana buu rasuulku yidhi sagaalaadkana waan ku darisaa yahuudda u khilaafay cibaadadii buu nebigu yahuudda ku khilaafay innagana maanta dhaqankii baan ka qaadannay tarbiyaddii baan ka qaadannay tacliintii baan ka qaadannay zawaajkii baan yahuudda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa marka saxaabigii dahabkii nebigu uu ka tuuray inuu qaato uu iska diiday limaada waxuu garanayaa nebi maxamed qadarkiisa sal allahu alayh wasalam waa jiilkaasi qarna alawal waa waxaan lagu gaadhi karayn bay kamid tahay arrimahaasi inay gartaan nebi maxamed qadarkiisa calayh salaatu wasalaam maalin maalmaha ka miduu nebigu ku yidhi nin ansaariya buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nicama wa quratu caynin buu yidhi oo nebi allow adiga ayaa ku heli kara buu yidhi adiga ayaa ku heli kara markaa buu nebigu yidhi anigu ma rabiye waxaan u rabaa julaybiib baan u rabaa julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiine oo dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaano dabeecaddiisa
وطبيعته حلقوا يقان حوجها أخلاق حماء ذاتك أيون لك افتمي جري حتى هوينكم لك افتمي جري مركز بدتك رين مدينة وواحد يسكو شاقان قبله إن الجليبيب هيسكجر بالسنة من طبيعات دي سؤال في عينين والضمر كمالها اسكمر مرة يهضو دون الله كفتمع مركوانين أخلاق حنوة يعني أخلاق دي ساسي أن هناك سنين والله قول شاك كيسانة يا مدينة وما قول شاك كيسانة وأنك أنك النبي يقول لي أنك رين مدينة إن أنت هذه أنك سي مركز صحابي يقول النبي الله هذيك ما إن أنت إذا أيابك وحلي كرا هذا هذيك تري سي وبالنعمة إلهي أنك يسيو إنها يكون ويكون راح يسنى يعني أنت يديو حاسدك كون نقطة هل بكيري مركز النبي يقول أنك مر بيه لكن وحنا نرى بابور الجليبيب بن لدون يا جليبيب مركز سوري حتى أشاور أمها هو يدد بن كتلق لني يكاد بكير هو يدد بن لا صوت الشنية وحال الرين مدينة عرف دقن وحيل أها يعني قبله هدي أي جادان دادي قبلها اللي قبور سنة ninka gabadha dhalay inanta dhalay intuu nabiga u yimaado ayuu oran jiray inantaydi way qaan gaadhay nabi allah hadaad inantayda adigu aad doonaysidna waa ku diyaar hadaad cid kale u doonaysana waa ku diyaar dadka qofka af khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonata waa min as-sunna weeyaan Xafsa bint Umar markuu ninkeedii ka dhintay Umar ibn Khattab intuu socday ayuu Uthman u sheegay ku yiri hadaa doonto inanteeda Xafsa waan ku dhisi markaas Uthman yiri waan soo fikiri isku noqday markaas yiri ya Umar waan fikiray waxa ii soo baxday sanadka maanta inaan guursane hay sugina wala laga raali ahaw jazaakallahu khayr bukayri hadana maalin kale Umar socdo Abu Bakar buu la doontay Xafsa yiri Abu Bakar Siddiq hadaa doonto inanteeda Xafsa waan ku dhisi waa ku diyaar markaas Abu Bakar uu ka aamusay لماذا محو عمر إن أنتِ حفصة وعثمان يا عمر ويا أبو بكر وأبو بدقيا ما تقانا عرف جبرجا مسلمين تو أي لها ينوحا كمدها إن أنتوا هديك دقدادي قبلها اللي جور سنة وحا أصوها صاوايا أبيه ولا الكيد أدير كيد يا أبتجي هل كأنك والله أنا سوء يا جاكو أربحاني الآن يا أبا متشغية أوندا يا ولي بهيئتها أو شغية هيئتها وقال هيئتها خرج بريها المبتة لا إله إلا الله سوء يا جماعة هذا إن أنت هذا يدبت أوصو بحث معها وقرنا في بيوتكن إن أنت هذا وين حق دم فردا جلبابك أوه الرجال قبض مسلمات ويحرن يسوع وين يقول جوجنا قطويان باهي إذا وحي دبت كيا لنا مركب أوبا هنتهي أما أبهد أما ولا الكيد أما إن كذا أما أدير كذا أبلا شيء أما أبتجد هو يلا شيء أما ولا الكيد بسوق حين يصور راعيا لماذا ما هيصور راعيا ما هن تسلط إيو سيطرين قبلها الله سيطرين إيو واختيارك الله قاعد يا همودن إن يا مسلمتي بل أدوكو كو إلالنا يا وقارد غور كاجي وكيكو إلالنا يي أدو كا إلالنا يا أدوكو كا إلالنا يا توكتو كا إلالنا يا دتك مجرمين تو كا إلالنا يا فسقدوا كا إلالنا يا سيد الله عكتا يا دايما كا ميل قالي يا الله ديغو ميل أن لا أركين لو قردو أيا قبضة مسلمة مؤمنة أي دين الإسلام مل في عنو دكت هذا يكون إلالنا يا إنك أنا ما أنت واحد لقى داعي دين الإسلام كتوم مرك اختيار كيف كقاضو أقل هذا فردي يا بيتي أقل كفردي شرفت هذا أقل كنا الفردي كوكو فلان شرف بيكوت أقول كنا الفردي صدّون دون ماها أبي بكر عمر السجا أدون أوها ساوي ننتيسي إن أنت هذا الشيء ذاتك الخير كتوه ميسو إن أدوب بردك تانا عيب ماها ما أنت إنك حاجة نوح لو أركع أدونيكو إن أنت سأو رجع أوير وصوها ساو وحال يسألون بوسليه هاي ورمتوع عقلوها يا ونوع عمينا يا ماي عمر باس عضو عثمان وبندقي عثمان وجوابي أبو بكر بوم بندقي أبو بكر واقع مصي مدير كذب وحصودون حفصة رضي الله عنها نبي محمد باصودون عليه الصلاة والسلام لأن مركب النبي قبورسه مركب قوركاس ودم ماذي أيا مالين دم بعمر يا أبو بكر باكلمي أبو بكر بهذا الكقاتو يري
yaa cumar malaha qalbiga waxbaad igu haysaa markaasuu yidhi haa aan kugu hayaa horta abaan cuthmaan u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafi uu siiyey adigana waa kuu bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad odhan mayana imaad odhan markaasuu abubakar ku yidhi anigu waxaan ogaa nebi maxamed oo xafse hadal hayaan ogaa markaas sirta nebiga inaan sheegaan diidanaa hadduu nebigu xafse uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallaahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxau nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu odhan jiray yaa rasuulallah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu markaa u weydiistuu ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu yidhi nicima wa quratu caynin yaa rasuul allah waa nicmad ishayduna way ku raaxaysaniye waad heshaa markaabuu nebigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiib julaybiibna waa ninkaan nii soo sheego waa la yaqaana dabiicaddiisa markaasuu yidhi julaybiib haa uu istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya dee baliikaadii markaabuu nebigu yidhi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu yidhi inanteennii waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu yidhi rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tihi nicama wa quratu caynin wa quratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yidhi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tihi hadda ayuu u rabaa markaasuu yidhi julaybiib julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tidhi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebel kalaa soo doonay waan u diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiine o dhan lagu hadal haye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin waar julaybiib u dhisi mayne qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aniga i bixiyey oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi hee halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahee i bixiya bay ku tidhi markaasay ku tidhi islaantii waa run hadalkaasiye orodoo nebiga u sheego ku dheh halkaad raalliga adigu baad kala noqotay inantayadii annaguna raalli baan kala noqonay markaasaa saxaabigii baa nebigu u yimid oo yidhi nebi allow inantii julaybiib waan siinay guurkii uu julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxaa dhacday fasca waxaa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayey buu markaa julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jebiyey la laayey ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nebigu saxaabadii ku yidhi war anigu nin baan tabayaa war nin baan arki lahay markaasaa laga yidhi nebi allow waa ninkee markaasuu yidhi julaybiib awaya markaasaa meydkiisi la doonto waxaa la arkay isagoo 7 mushrikiina intuu dhulka dhigay isagiina markii dambe lagu daro meyda oo dul yaalla markaabuu nebigu yidhi wallaahi kaase julaybiib anuu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nebigu hadalkaa ku celiyey anigu julaybiib anuu iga mid yahay anna isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raalliga ka ahaabuu u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqayga weeyaan markaasuu nebigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu cidhiidhi weligeed ha ka gelin buu rasuulku yidhi gabadh carmala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yidhahdeen asxaabadu nama soo marin gabadhaa mooyaane laana ducadii nabigeena ku dhacday sal alla alay wasalam